Assalaamu calaykum. Magacaygu waa Cabdullah. Halkan waa kanaalka dunida. Maanta muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay heshiiskan Falastiiniyiinta muxuu uga dhigan yahay. Heshiiskan Israa'iil iyo isutaga Imaaraadka Carabta wuxuu ku dhex abuuray inay labada dal safaarado isdhaafsadaan. Wuxuu sidoo kale heshiiskan u jebinayaa qodobo ay ka mid yihiin waxyaabaha ugu adag ee sanado badan ay Falastiin iyo Israa'iil isku mari waayeen, oo ah qorshaha Israa'iil ay ku doonayso inay ku qabsato dhul hor leh oo ka mid ah daanta galbeed ee Falastiin. Benjamin Netanyahu waxa uu sheegay dhulka Israa'iil inuu 30% u ballaarinayo dhinaca daanta galbeed oo ay Falastiiniyiintu ku haaminayaan inuu ka mid noqdo dal madax bannaan oo ay Falastiiniyiintu leeyihiin. Sida uu dhigayo waxaa lagu yeeray heshiiska Trump oo uu damacsan yahay. Falastiiniyiinta waxay sheegeen tallaabada noocaasi ahi inay halis ku tahay dowladnimadooda, inkastoo ay ilaa hadda ogolaanshihii ugu dambeeyay aan laga helin dhinaca Washington, taasoo u muuqata inuu qorshahaasi istaagay. Hogaamiyaha Falastiiniyiinta ayaa la sheegay inay tallaabadani ay la yaab ku noqotay. Falastiin waxay dhaleeceysay qaab dhismeedkii xiriirka dhow ee labada dal sida ay qabeen Falastiiniyiinta. Falastiin muddo 10 sano ah ayay si joogto ah u baahnayeen, is-afgaradkuna wuxuu bilaabmay 1948 markii kumanaan reer Falastiiniyiin ah laga eriyay dhulkoodii. Marna ma laga joojinaynin dib u cusboonaysiinta dhulkoodii. Si kastaba uu qofku u akhriyay heshiiskan diblomaasiyadeed ee Khamiista u dhexeeya Israa'iil iyo Imaaraadka, runtiina waxaa jiri doona taageerayaal badan iyo dhagarqabayaal badan. Marka loo fiiriyo dabeecaddiisii taariikhiga ahaan, waxaa jira hal gabagaba ah oo muuqda mid aan laga quusan karayn. Israa'iil ayaa lahayd guushii ugu weyneed. Israa'iil, gaar ahaan Benjamin Netanyahu, waxa uu dhaliyay guul weyn isagoo joojinaya hanjabaadaha ku wajahan qaybo ka mid ah daanta galbeed. Si uu u helo sharciyeyn buuxda, waxa uu naftiisa u oggolaaday inuu ka laabto ballanqaadkaasi, laakiin laga yaabo inuu ka laabto qodobo ka mid ah heshiiskaas. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ka hadlay heshiiska taariikhiga ah ay gaareen dalalka Imaaraadka Carabta iyo Israa'iil. Madaxweyne Erdogan oo khudbad ka jeediyay telefishinka ayaa sheegay in dalkaasi ay dhici karto inuu xiriirka u jaro Imaaraadka, waxaana sababta uu ku sheegay xiriirka ee la yeelanayso Israa'iil. Imaaraadka Carabta ayaa horaantii bishaani ku dhawaaqday inay si guul leh u bilowday warshadaheedii tamarta nukliyeerka oo ah tii ugu horeysay ee wadamada Carabta, iyo tallaabo muhiim ah oo ku wajahan hadafkii waddanka koronto la'aanta ahaa. Si kastoo ay ahaato, sababaha qaarkood waxyaabo la hubo oo ay ka mid yihiin in Trump uu heli doono sawirkiisii ugu dambeeyay ee muuqaalka leh ka hor doorashooyinkii ka dhacay Rose Garden ee Aqalka Cad. Imaaraadka waxay ku biiri doontaa horyaal awood-yahanada gobolka. Netanyahu waxa uu suurtagal u sii dheerayn karaa cimrigiisii siyaasadeed, waana Falastiiniyiinta cidda khasaartay. Sidaas ayuu Erdogan u sheegay madaxa goboleed ee xisbiga oo kula kulmay Ankara. Magacaygu waa Cabdullah. Halkan waa kanaalka dunida.